السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa TV-ga caalamiga ah ee qasab ku sheeg qabiilkaaga oo maanta marti noogu yahay mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. mudane horta hadda anagoo ah baada saxaafadda ee TV-ga caalamiga ee qasab ku sheeg qabiilkaaga waan ku salaamnay si kale laabo. waa mahadsantihiin maadaama ay soo boqoteen maanta xafiiskayga aad baa idin soo dhaweynaya suxufiyiinta Soomaaliyeed suxufiyaal kamid ah TV-gina aad baa ugu mahadinaya u gudubal barnaamijkan mudane madaxweyne Xasan su'aasha aan ku weydiinayo maxay tahay in barnaamijkan ku furayo maxay ku sababsan tahay muxuu ka bilowday isqa qabsiga u dhaxeeya madaxweynaha oo adiga ah iyo ra'iisul wasaaraha isqa qabsiga mid hadda bilaabanaya maaha waa mid horay u soo jiray wuxuuna ka bilowday ninkan wuxuu rabaa dawladnimo nidaam iyo kala dambeyn iyo waxaan loo joogin inuu dalka ku soo rogo annaguna diyaar uma nihin maamul iyo midayn iyo maamul iyo dawladnimo intaba diyaar uma nihin sidaas baa isqabsigeena ku ka yahay oo rabaa inuu aan rabnaa inaan ku bixino okay mudane su'aasha labaad aan ku weydiinay waxay tahay adigoo raaliga ah haddii ay isku dhacaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maxaa keenay mar walba in ra'iisul wasaaraha lagu yaaco sababtu waxay tahay in la bixiyo ninkii dawladnimo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo dalka dib u soo celintiisa iyo nabadeynta iyo mideynta dadka iyo maamullo inuu ka shaqeeyo ninkaas Soomaaliya loogama baahno uu sii soconayaa maalin gudaheed inuu sii joogo marabno mooshin baan ka keenay hadda wayna ugu raacsiin dhamaan wasiirada iyo baarlamaanka waana bixinaynaa ninkaas daqiiqadaha soo socda waa hagaag okay madaxweyne adigoo anagoo barnaamijka ku sii dhex jirna maxay tahay su'aasha kale aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxa waaye haddii ay isku dhacaan madaxweynaha iyo maartay ra'iisul wasaaraha maxay mar walba baarlamaanka iyo wasiirada oo la saftaan madaxweynaha adeer runtii weeye waa qasab inay nala saftaan adduunka lacag waaye lacag baa shaqaynaysa baarlamaanka jeebka u buuxinayna wasiirada sidoo kale lacag baa shaqaynaysa hal sano waxay ku moodi lahaayeen ayaa la siinayaa marka carruurtooda biilkooda ayay ka talinayaan ayagaba dal iyo dad iyo dan midba ma hayaan waa hagaag oo qorshe fiican haddii ay cadaalad iyo wada sinaan dalka ka jiro maxay tahay markay motion sidan oo kale oo bilowda oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay isku dhacaan yani maxaa maartay haddii cadaalad iyo wada sinaan ay jirto wasiirada ama baarlamaanka ay isku dhinac u raacaan oo la wada saftaan madaxweynaha oo aysan qaarkood qaarka kale aysan ka ra'yi duwanaan oo isaga soo horjeesaneen marka koobaad horta wasiirada iyo baarlamaanka waxay ku qasab yihiin waxa qasab ku ah in ay raacaan madaxweynaha wax walba uu soo gudbiyo horay looma arkin in ay ka hor imaadaan si u badan yihiin mar dhici doonto marka koobaad horta waxa ay ugu raacayaan waa xagga security dhinaca security xagee ku soo hooyan ninkii diida waxa aan aniga wado oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xaguu ku hooyan oo Muqdisho dhex joogo hoy kala ma laha noloshiisa security ka fikiraya meel ku hooyda malaha hadduu iga hor imaado midda labaadna lacag baa la siinaya jeebka u qoynaya intaa bay ugu raacayaan mudane madaxweyne su'aal ayaan ku weydiinayaa kale oo su'aashaas oo ah yani dawladaha caalamka ah ama dawladaha kale ama sida maartay kuwan Afrikaanka isla nahay markii doorasho ay ka jirto waxa jirta in madaxweynaha uu cod ka helo shacabkiisa way mar walba dalkeena iyo ama Soomaaliya aysan shacabka u horseedeen madaxweynenimada sidii ku dooran lahaayeen ama aysan ayagu ugu codeyn karin sababta cilada hortaaga ma raba inay sheegto madaxweyne horta dawladahaas waa dawlada xor oo gaaray qaabkii ay ku codeyn lahaayeen shacabkooda dawladda Soomaaliya hadda xorna ahaasay meelaha ay u badan yihiin dadka sharciyo ay ku codeeyaan mala waa in marka hore laga taliyaa dadka inuu dalka dhan xoroobo dadka sharciyo loo wada jaro taasna waxaan badiidan anaga wada diidan anaga diidan inuu dalka xorooba diidantiin oo shacabku ay codayaan sidii lagu gaari lahaa anaga hor taagan Soomaaliya waan gart وكان مركب وحاجة حيدني
adduunka maadaama dowladaha qaarkood ay dhisan yihiin waxaan rabnaa innaga ina dowladeena ay noqoto mid isqa qabsi meerana kuleetiga isku dhagan yahay aan jirin horumar soo kordhin madaxweyne adaa ku watee maxay macnaha mar walba loo dhahaa Soomaaliya baa iskale maxaa loo dhahaa mar walba haddii aysan saas u jirto shacabkeeda aysan u codin karin oo looga hor imaado oo loo cabiidiyo maxaa loo dhahaa Soomaali baa leh waa run Soomaali baa leh laakiin jey ka kala socon laadahay Soomaalidii dhaxdeeda ayaa diidan inay kala socoto aan aniga kow ka ahay asxaab fara badan waa iyagana ila safan way jiraan laakiin hadda anigu baa madaxa kuwa isqaranayana way jiraan dowladnimada diyaar uma nihin hadda mana rabno saan barna anaga inaan isqa qabsigaan iyo waxaan aniga caruurtayda iyo eheladayda iyo mid qof Soomaali iga jooga mala anigana si raaxo leh baan ku noolahay marka hal isqa qabsado kuleetiga isku dhaganaa sida baa iska rabaa okay mudane madaxweyne anoo ku kaftaminaya ciyaaraha caalamka laga xiiseeyo sida kubadda oo kale tiimkee ayaa jeceshay mar walba inaad daawato ama tiimkeed xiiseysaa tiimka oo magaciisu Manchester miyaa ku qoran qaar waxa iska wataay nin jaamicin waa waxna ma akhriyo professor baana professor adaa ku watay jaamacadda bogtay madaxweyne jaamacadda bogtay yani dhinacyo badan baa muran isaga imaaday madaxweynuhu wuxuu soo bogay jaamacadda sare iyo jaamacadda hoose waxba la isku qabsay marka madaxweyne adigoo raalli ah kaftanku ay u sii dheeraadeen jaamacadda soo bogtay primary iskuulka Alabaadir la dhaho Muqdisho ku yaalaan ka bilaabay primary-gayga waa hagaag secondary-gayga isaga ku bagay ilaa heer jaamacad isaga ku bagay oo PhD ka qaatay oo ku dhameeyay waxbarashadii heerka sare waan gartay waxaan la igu baray oo aniga professional aan ku hay shaqadayda ay tahay xagga isqabqabsiga in la huriyo colaadaha dagaalada in la iska horkeeno dadka waxyaalahaas oo dhan ayaan professor ku aan ku qaatay shahaadooyinkii okay mudane madaxweyne adigoo raalli ah haddaan nahay bahda saxaafadda ee TV-ga caalamiga qasab ku shaqo qabiilkaaga waxaanu ku soo diyaarinay hadiyad aad u qaalisan hadiyadaas oo aan jecelnahay madaxweynaha si sharaf leh inaan u guddoonsiino maxaa ka qabtaa madaxweyne haddaan ku guddoonsiinay hadiyadaas maxaa ugu siinaysaa aan ku mutaystay waxaad ku mutaysatay يعني سيدا قبيلة أضو أبورتو سيدا ضدك isugu dirto sida wadanka colaada uga dhaxdhaliso saad raiisul wasaarayaasha oo cayriso oo wiyacdo sida maaragtay wasiirada aad u kala dirto sida dalka u kala hagtay casriga aad looga daba dhacay saasan macnaha ku guddoonsiinaya waa mahadsantihiin waxa igu siiyaan buwaayaydu waa in qarnayeen boqtaasum bay lacag iga keenayaan madana madaxweyne caalamka laga arko professional ahaan la guddoonsiin waxa fiiraysa madana madaxweyne waan ku guddoonsiinayna horta biladan caalamiga iga qabo waxaan kaloo ku guddoonsiinayaa kaabkii qabyaalada oo halkan maanta maartay aan ku guddoonsiinayo asagana iga guddoon madana madaxweyne guuleyso madaxweyne guuleyso su'aal kale aan ku weydiiyay madaxweyne sida aan arkada muuqaaga madaxaaga waa buluug wajigaaga waa iska caadi timaagana guduud marka labada calaamadood kor ku qabta maxay kale sida madaxa buluuga iyo timaha guduud maxay kale yihiin waxaan waa inkaar iyo balaayo ugu duugan dhiigga umada Soomaaliyeed iyo habraha iyo balaayada la dhibaateynayo way waxaan adarkays waa bilada هاي مدن مدحوين وما حسنت ما أنت برنامج كان قال قيب قضاتي وحن رجينا نادي ودن كسان أنا كسي ودن إن شاء الله ورجينا هاي مدحوين